الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بأنه مهدقنا سبحانه وتعالى مركلين السيئي فرصدي بشهر رمضان iyadoo aynu ogsoonnahay dad badan oo walaalaheenaha oo geeriyooday ama cudur ku dhacay ama duruufi ay ku timi inaanay fursadan helin. wax Ilaahay loogu mahadnaqo way subxaanahu wa ta'ala. intaa kadib waxaynu xusi doonaa faa'iidooyinka soomka qaar ka mid ah ayaamaha kooban ee aynu haysano bisha Ramadaan. faa'iidooyinkiisa waxa kamid ah asiyaam wasiilatun li husul taqwa. waxyaabaha adoonku uu helo kuwa u qaalisan oo alla ka cabsiga wadada iyo wasiilada lagu gaadho weeye soom. dadkana waxa kala saaraa waa alla ka cabsiga. inuu adoonku Ilaahay ka cabsado Ilaahay bay u dhawaysaa. inuu adoonku Ilaahay ka cabsan waayana إلهي بكفوجيسه سبحانه وتعالى. قرآن كوحة وحصيا ضدك وحة لقو قيمين يا إنه يهي التقوى يضل لقاها لا يضل لوايه الله وضع الصلاة لقو قيمين. هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم جنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إلهي بأوحر وحبها يسمانين ضديهم أمان قف كله إلهي كعب صنية اللهم بأوك. مركا يطلع عطيسي قفك أنك كعب سجلي إنه يهيك أمان تله إلهي يكتيسه. وحكى الله ربي سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيدين كو كرامة بدر أما يدين كو شرف بدر أما يدين كو قب سنواك التقوى عليه. مركا التقوى ذا سود رجوينه وعرفت دمنا قفك تقوى ذلك التقوى ضمباله. والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. آية الدنبه ايوانا اكسن الله كعبسي قيه الكيسالة إلهي باستاح سبحانه وتعالى. مركا موضوع انو كهدلينا ماها التقوى ذا التفاسيش هذا، لكن تقوى ذا التيد هذا انو كهدلينا قضبك اوهر ريا مركا وحويا وحقفك كسارة waxa la yiraahdo xadgudubka iyo kibirka ee waxa siliyaa u suga alla ka cabsiga waa soomka. Allah wuxuu yaa ayuhal ladina aamanu kutiba alaykumus siyaamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. ina ilaahay ka cabsataan baa u dhowdiin la'allakum tattaqun. marka soomka sharciga ah ee wanaagsan ee adoonku ku samafalayo ee xubnaha qofka ilaalinaya way afkiisa ishiisa soomka qiimaha badani waa ka. faa'iidada labaad waxa weeye fi ramadaan bayaanu li rahmatillahi subhanahu ويتضح هذا من وجوه. بشهر رمضان waxa ku sugan naxariis Ilaahay inoo naxariisanay. adigu ha eegino ha orani xagee naxariistu joogtaa gaajaaba lagu waajibiyay dadka. bal waxa la helay eeg أما بشهر رمضان سيابها وإلهي يقول نحريستي لنعيدا كلا دوان بين نقون كرا. مركوها الرأي جعل الله صيام أياما معدودة ولم يفرض سرمدا أبدا أو أبديا. صوم كيلا هاي وحكا لغا أياما كوبا سنة كيورا لغا مدقين بلو فيرس هذه اللورا لها سنة كورا هلا صومه. أما صوم كبا نوع صومه وحي نقول لها يدي بضان. لكن أيامها كوبا أياما معدودات سيدا إلهي ولي waxay sheegaysaa naxariis Ilaahay adoomaha u naxariisanayo. koobiyo toban bilood dacun bil kaliyana soob iyadoo faa'iidooyinku nafta u leeyahay ruuxdiisa iyo jirkiisaba la ogsoon yahay oo taa hadda aynaan hayno qofkuba u baahan yahay soomka. haddana waa ayaamo kooban 360 maalmood ma dhowr iyo 60 maalmood baa lagu yiri 30 ka mid ah. dhinaca labaad naxariistu ay ka muuqanaysaa waxa weeye jacalahu juz'an min yawmin ولم يفرضه يوما كاملا ليله بالنهار
bal habata annahyu can muwaasalati sawm 24 saacadood baa wada socda habeen iyo maalin la isku dhaadaa oo habeenkii maalinku way israacsan yihiin labadaa ilaahay iskuma darin xataa wuxuu ka dhigay 24kii saacadood ee wada socday 12 ka mid ah ama inta qoraxdu ay soo jeedo wanaan idhaahno inta ay qoraxdu soo jeedo baa la soomalanaya hadduu habeenkii ku dari lahaa dee dad badan way ku cuslaan lahayd way dareemi lahayd bal waabuu diidayba rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii asxaabta qaarkood yidhaahdeen aan isku xidhiidhinno habeenka iyo maalinka dambe wuu nahayey marka waxyaabaha la diiday bay ka mid tahay muwaasalatu siyaam in soomka la isku daro waa naxariista siyaabuu ilaahay ugu naxariistay bay ka mid tahay naxariista ramadaan ka muuqanaysa man nasiya fa akala aw shariba fa sawmuhu saxiix maca annahu naaqid macna siyaam qofkii cunay ee cabbay soomkiisa waa sax baa lagu isagoo isilowsan buu cunay u cabbay ama galma sameeyey wixii xaraamta ah soomkiisa waa saxiix haddasmana soomana marka la eego dhab ahaan ee waxbaabu cunayba ilaa qofka aan waxba cunin baa la yidhaahdaa wuu soomayay isagoo wax cunay oo wax cabbay oo aan soomanayn ayaa lagu yidhi haddana soomkiisii wuu jiraa waa naxariis ilaahay subxaana wa tacaala wakhtiyadii hore sida aynu ogsoonnahay soomku sidan wuu ka duwanaa oo sida axaadiidta saxiixa macruufka ku ah dhexdeeda qofku laba arrimood buu xaqu lahaa aayaddana arrintaas way caddaynaysaa oo ka muuqanaysaa inuu qofku raashin bixiyo oo iska cuno iyo inuu soomo labadaaba xaq buu lahaa waana intii dadka lagu tababarayay bidaayata tashriic wakhtigaa sharciga loo dejiyey sidaa daraaddeed taasina waxay soo dhowayn dadka lagu soo dhowaynayo faa'iidooyinka soomka waxaa ka mid a fii ramadaan yatajallaa karamu lmawla subxaanahu wa tacaala wayatadixu dalika biumuur deeqda alleh ramadaan aad bay u badantay qofkii alla tuso ee indhaqabe arkaya ee u jeeda nusuusta wax badan baa soo kordhay oo aan hore loo hayn bilaha kale oy kow ka tahay in jannadiina la furay sababtii lagu gelayayna la furay ramadaan baa lagu garaayay cibaadada jannada albaabadeediina way ballaqan yihiin laylatulqadrigaa lagu helaa oo waa furanta bisha ramadaan albaabadii jannaduna way furan yihin markaa sababtii iyo wixii sababta loo noqonayo jannadii iyo labadii way isla furan yihin sida xadiidka marar badan maqasheen ku cad naartiina waa la xidhay iyo sababtii wixii ciddii sababta u ahayd oo shaydaan ah shaydaankii qofka garbaduubaya hore u riixaya macsiyada ku riixayay wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam in la xidhay naartiina waa la xidhay marka naarta iyo wixii fududaynaya way isla xidhmeen jannadii iyo wixii fududaynayena way isla furmeen waxaa ka mid a khasaa'iska bishan aynu helay ajru saa'im waxa uu noqday mid ilaahay laga helayo oo weliba siyaamkii aan idhaahno cibaado si gaara ilaahay ugu calaamadiyey xaggiisa oo isugu idaafeeyey ila siyaam fa innahu lii wa ana ajzi bih soomkii anigaa leh camalka kale o dhan addoonku isagaa leh soomkana anaa le baa ilaahay uli subxaana wa tacaala isagaa camalka o dhan wada leh laakiin idaafadaasi waxay xusaysaa soomku inuu leeyahay shibqad iyo xaalad gaara oo aanay lahayn cibaadooyinka kale abu daawud alhindi imaamka la odhan jiro caabid caana ahaa waxay culimmada taariikhdu tarjamadiisa ku xusaan markay ka warramayaan macnaha ikhlaaskiisa 40 sannadood buu soomi jiro ehelkiisuna aanay ogeyn dadka la shaqeeyaana aanay ogeyn isagiiyo ilaahay uun isla ogaayeen ikhlaaskiisa daraaddeed reerka wuxuu ka soo qaataa sahaydiisa ama raashinka uu leeyahay waan ku quraacanaya waan ku qadaynayaa markuu shaqada tago meelaha uu suuqa ka shaqaynayo ayuu masaakiinta siiyaa intuu shaqada jooga dadka ay wada shaqaynayaanna waxay u haystaan inuu gurigii ka soo cunay dadka guriguna wuxuu u haystaan wixii uu qaaday inuu suuqa ku cunay isaga iyo ilaahay unbaa isla og subxaanahu wa tacaala
marka arrintaas waxay tilmaamaysaa wixii kale cibaado ah waa lagugu arkiyo inteeda badan ma qarin kartid laakiin soomkii qofku isagoo cunay buu qarin karaa lidalik baad ikhlaaskiisu sii badan yahay daacadnimadiisu naxariista ilaahay bishan uu badiyay waxa kamid ah inuu tilmaamay man qaama laylatal qadri iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ramadaantiina waa lagu dhaafaa dambigi laylatul qadrigana waa lagu dhaafaa macnaha soomkii iyo qiyaamkii as-siyaam wal qiyaam marna soomkii baa dambiga lagu dhaafaa buu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam ramadaan la iimanay marna qiyaamkii iyo habeenkii soomkii iyo quraankii labadiibana waxay u shafaaco qaadayaan adoomkii waxyaabaha naxariista ilaahay bishan biiraysay kamid tahay qofka hadii soomkiisii uu yaraado ama maalmihii ka yaraadaan xataa inaanu ajrigi dhinmayn لا ينقص أجره ولو نقص الشهر بشو هبا يراتو هدي منتو لكن مرن ما أجره شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة لباب بلاد مرن مان بو نبي عليه الصلاة والسلام مرن مان أما من ناقصان ولا بدا بلاد أي كتران لبدا عيدات عيد الأضحى وعيد الفطر macnaheedu waxa culimadu ku fasireen macnayaasha ku fasireen waxa kamid ah hadii tiradu ay 30 noqon weydo ajriga uu jiraa oo waa dhameystirmaya waxyaabaha aynu bisha helaynaa buu kamid yahay qofku qayb kamid ah habeenkii isagoo cibaadaystay laakiin imaamka la cibaadaystay imaamkii dadka tukinayay inuu ilaahay u qorayo habeenkii oo dhan isagoo wada cibaadaysanay habeenku intuu ka tira leeyahay oo dhan isagoo cibaado u taagnaabu ka dhigan oo la mid yahay man qaama ramadaana ma'a al-imam hatta yansarifa kutiba lahu ajru qiyam layla hadithki sahiha rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu qofka habeenkii imaamka la cibaadaystay la socdaan ka harin ilaa intuu ka baxayo waxa loo qoraa inuu habeenkii oo dhan cibaado u taagnaa كوبية تبرق عضو صدح يتبرق عضو بإمام كلا تكذا قف لكن والله نمايست شاي يجيب الله بلاوي مثلا أما تراويح ذي بالله بلاوي والكاسول دمي كمو تجين وصح ما هنا ترى هذا هل كنا قيبا كنت كنا يا إمام مساج كلنا قيب حديث كنا دواء الساس معنا أجر جن النبي وشيء عليه الصلاة والسلام مركب والله نمايست وحوكر جينو ساعدي هبينكي أوردن عبادة وتاجنا وفضلي إلهي سبحانه وتعالى بشر منه قال وكل ما مضى ثابت في الأحاديث الصحيحة قد بدأ إن صار شيء فوائد رمضان كم إذا لما أنتوا حيكسوا جيهين أحاديث صحيحة استدراد يدور الليال أيامها نوا قالي يينا نضيعنا فرصة إنه كفايدة سنة ضد كانوا كفايدينه ومدنا كبر رجينه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسبحان ربك